بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Dr. Maxamed Cabduqaadir Wadheere oo ku magac dheer Dr. Asmar waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay daweynta xanuunada ku dhaca beerka iyo dheefshiidka waxaan ka howlgalaa isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese Specialty Hospital sidaad uga barateen isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese in uu had iyo jeer la garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed wacyigelin caafimaad waxaan jeclaystay inaan wacyigelin ka bixiyo cagaarshowga ama hepatitis-ka iyadoo foodo inagu soo hayso maalinweynaha loo asteeyay cagaarshowga ama hepatitis-ka loo yaqaan World Hepatitis Day oo ku beegan 28 July ee foodo inagu soo haysa waxaan isweydiin doonaa su'aalo badan oo maskaxdaada ka guuxaya markii aad maqasho cagaarshow ama hepatitis waxaan ku horreysiinaynaa waa maxay cagaarshow cagaarshowgu waa calaamad ka soo baxda qofka markii uu beerku xanuunsado taasoo ka soo muuqata maqaarka qofka oo yeesho huruud iyo indhahu cagaarta haddaba maxaa sababa cagaarshowga cagaarshowgu wuxuu leeyahay sababo fara badan oo ay ka mid yihiin fayrasyada noocyadooda kala duwan oo saameeya beerka sidoo kale dawo fara badan si qaldan loo isticmaalo sidoo kale in difaaca jirka uu weeraro beerka muuqaalkeena wacyigelinta waxaan diiradda ku saari doonaa fayrasyada noocyadooda kala duwan ee saameynta ku leh beerka taasoo loo yaqaano cagaarshow haddaba imse nooc ayuu u qaybsamaa cagaarshowgu cagaarshowgu wuxuu u qaybsamaa ilaa 6 nooc oo loo yaqaano cagaarshowga nooca A-ga nooca B-ga nooca C-ga D E iyo G haddaba cagaarshowgu qaabkee ayuu ku faafaa ama lagu kala qaadaa cagaarshowga noociisa A-ga iyo E-ga waxay ku faafaan cunnada waxay kaloo ku faafaan biyaha iyo nadaafad darida cagaarshowga noociisa A-ga wuxuu badanaa ku dhacaa caruurta yaryar kaasoo looga buskoodo muddo ilaa 4 isbuuc ah sidoo kale cagaarshowga noociisa E-ga wuxuu u daran yahay maamada uurka leh labada nooc ee ugu halista badan cagaarshowgu waa nooca B-ga iyo nooca C-ga kuwaasoo dhalin kara inuu beerku adkaado beerku isku bedelo kansarka beerka ilaa kula gaari kara marxalad dhimasho waxaa lagu kala qaadi karaa nooca B-ga iyo nooca C-ga in la isla isticmaalo cirbadaha sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa galmada sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa in ay hooyada uurka leh u gudbiso dhallaanka haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo qofka qaba cagaarshow 1 indhaha qofka oo cagaarta 2 kaadida qofka oo u ekaata midabka shaaha 3 maqaarka oo noqda maqaar huruuda ama kalarka huruuda 4 daal fara badan iyo tabardarri fara badan calool xanuun weliba dhinaca midigta ee xigta beerka qiyaas ahaantii in ka badan 250 milyan oo qof caalamka ayaa waxay la nool yihiin cagaarshowga noociisa B-ga halka in ka badan 50 milyan ay la nool yihiin cagaarshowga noociisa C-ga sidoo kale 1.5 milyan oo qof ayaa si sanadlaha loo arkaa inay u dhintaan cagaarshowga noociisa B-ga iyo C-ga Afrika gaar ahaan waddanka Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada ugu badan ee qaba hepatitis B-ga ama cagaarshowga noociisa B-ga iyadoo waddankeena Soomaaliya ay soo ziyaadayso tirada bukaanada leh hepatitis B-ga ama cagaarshowga noociisa B-ga waxaa caddeyn u noqon karta tirada bukaanada maanta la dhiban kansarka beerka haddaba cagaarshowgu ma leeyahay daawo cagaarshowga nooca A-ga wuxuu kaliya u baahan yahay kaalmaati nasasho iyo inaad ka fogaato daawooyinka khatarta u leh beerka inaad cunto cunno nafaqo leh oo dufin la'aan ah sidoo kale cagaarshowga nooca C-ga wuxuu leeyahay daawo qofka uu qaadanayo muddo 3 bilood ah oo gabi ahaanba uga ciribtirayo fayraskii nooca C-ga cagaarshowga noociisa B-ga ma laha wax daawo ah oo ciribtiraysa laakiin wuxuu leeyahay daawo yaraynaysa xaddiga fayraska kana ilaalinaysa inuu dhaawaco ama dhaawac gaarsiiyo beerka sidee loola noolaan karaa cagaarshowga nooca B-ga iyo C-ga dadka qaba cagaarshowga nooca B-ga iyo C-ga way noolaan karaan nolosha caadiga iyagoo wax baran kara shaqaysan kara caruur dhali kara oo guursan kara laakiin ka feejignow waxyaabahan soo socda 1 ka ilaali beerkaaga daawooyinka dhaawac gaarsiin kara ha isticmaalin daawooyin oo soo qorin dhakhtar cunno fiican oo aan dufin lahayn oo ka ilaali beerkaaga beer subaga
la soco caafimaadkaaga oo ku xirnow doctor. Samey baaritaanada beerka iyo kombiyuutarka caloosha 2 sano mar. Ka fogow inaad dhiigaaga dadka la wadaagto iyo waxyaabaha khaaska ku ah sida shanlada, sakiinta, cirbadaha iyo cadayga. Lamaanaha midkood hadduu virusku qabo waa inuu midka kale talaalan yahay, sidoo kale caruurta waa in ay talaalan yihiin. Sidoo kale waa in la talaalaa dadka kugu hareeraysan oo aad la dhaqanto. Hooyo kasta oo uur leh waa in ay iska baartaa cagaarshowga ama hepatitis-yada uurka bilowgiisa. Sidoo kale hooyo kasta oo cagaarshowga qabta noociisa B-ga waa in ay check up garaysaa viral load-ka ama tirada viruska inta lagu guda jiro uurka ama isbuuca 26aad. Haddii uu ka sarreeyo 200 oo kun waa in ay daawada cagaarshowga bilowdaa. Waa in uu dhallaanka qaataa cirbadda talaalka 12 saac ee hore ee dhalmadiisa, iyo waa inuu qaataa cirbadda loo yaqaano IVIG oo loo yaqaano IV immunoglobulin. Gunaanadka wacyigelinteena. Ogsoonow cagaarshowga noociisa B-ga iyo C-ga waxa ay leeyihiin khatartooda gaarka ah. Waxay u baahan yihiin ka feejignaan iyo ka warqab. Cagaarshowga noociisa C-ga wuxuu leeyahay dawo ciribtiraysa oo muddo 3 bilood oo kaliya la qaadanayo, halka cagaarshowga noociisa B-ga uu leeyahay talaal iyo dawo yaraynaysa xaddiga viruska. Iska talaal cagaarshowga inta aad caafimaad qabto. Mahadsanidin.